walow aan soo rafaadnay dadaalno. halkan waxaa ka dhacday qiso aad u xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed oo aan wareystay ay leeyihiin gabar Soomaaliyeed oo hooyo ah ayaa waxaa dhacday in ay cunug yar ay dhashay oo wiil ah gowracday oo iyadoo markaas la yiri ilmihii yaraa waxay ku riday qashinka marka insha Allah waxaan jeclahay qof qoyska kamid ah oo walaalayihiin inaan arinta aan ka wareysto oo hadda nala jooga anna dabcan maadaama aan sharciga aqoon badan ugu leeyahay wax badan kama oran karno sababtoo tahay gabadhu waxa laga yaabaa xaalad caafimaad darro ah oo maskaxda ah inay jirto taasina dabcan dhaqaatiir ayaa baarta dhibaato nololeed ayay gabadhu sheeganaysaa sida la ii sheegay dhibaato stress ama walaac ama nolosha kaga timid dhinaca seegii carruurta wada dhaleen ayaa laga sheegaya marka maadaama arrimahaas ay jiraan xog badan kama bixin karo marka waxaan jeclahay inaa ii soo dhawaatid halkan ii soo istaag ninkan waa nin dhalinyaro ah oo aan isnaqaano oo dadka magaalada degan ah waxaan rabaa bal inaan ka wareysto haddii ilaahay idmo marka ugu horeysa gabadha magaceeda bal hadda aan sheegin adiga qoyska maxaad istiin gabadha qaraabaan nahay gabadha dib fara badan bay ninkeeda kala kulantay gabadha adigu marka hore waxaa tihiin qoys baa tihiin qoys baan nahay qaraabaa tihiin waayaa gabadha goormay u soo guurtay magaaladan St. Cloud inta aad adigu adag tahay gabadha hooyada ah meeqa aad degan tahay magaalada 7 bilood bay degan tahay waayahay gabadha meeqa caruura ay dhashay adigu aad taqaanid walow aan soo rafaadnay dadaalno soo ruxlaynay riyada laynoo rumeeyey walow aan soo rafaadnay dadaalno soo ruxlaynay riyada laynoo rumeeyey. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. inta salaam walaalahay adduunka meel kasta ka joogtiin inta xanuunsan ilaahay caafimaad ha siiyo cimri dheerna ha siiyo caafimaad degdegna ilaahay waxaan uga baryaynaa caafimaad degdeg inuu siiyo intii xanuunsan ilaahay inuu caafiyo oo caafimaad siiyo insha Allah intii naga dhimatayna ilaahay inuu naxariisto baa ilaahay uga baryaynaa meel kasta adduunka joogtiin hadday habeen idiin tahay hadday maalin idiin tahay meesha igala socotiin waa Huda Sarmaan soo dhawaada insha Allah haddii nagu cusubtiin hadda kugu horeysa channelkayga subscribe samee like taabo insha Allah share garay videoga horaantii aan wax yar ka soo dhigay waxa weeyaan walaalayaalow gabar Mareykanka la yiri waxay ku dishay ilmo yar oo ay dhashay oo saqiir ah way qalqashay baa la yiri laakiin ilaa hadda askarta booliiska ma soo sheegin siday wax u gashay laakiin ilmihii inay dishay oo iyadana la xiray baa la soo sheegay gabadhan waxa lagu leeyahay way maseertay Soomaalida laakiin waxay u badan tahay 100% gabadha inay depression qaaday ama ay xanuunsatay oo isla hadashay postmortem markay dumarku badanaa umusha ay ka baxaan depression wax la dhaho isla hadal bay qaadaan cudur run ah oo dad badan oo badan 100% waxa lagu leeyahay 20 Mareykanka Canada European meesha rabta noqoto markay dumarku dhalaan cudurkaas ku dhaca way isla hadlaan way xanuunsadaan haddaysan caafimaad iyo dhakhaatiir raadsanin oo kiniiniyaal iyo wax maaragtay gacan qabta oo support garay haddaysan helin way isla hadlaan way xanuunsadaan waxa laga yaabaa gabadha inay xanuunsanayd oo depression intuu ku dhacay depressionkii uu ku weynaaday oo xanuunkii iyo isla hadalkii isku buuqday uu ku weynaaday kadibna ninka isku xumaadeen oo ninka nin xun uu ku noqday wiil waxa meesha ka hadlay videoga iyada ay qaraabo yihiin oo sheegaya inay ninku isku xumaa oo ninku nin fiican u sahayn waxyaalo noocaas ah laakiin Ilaah baa naga og laakiin aniga hadda pointigayga maanta videoga waxaan rabaa inaan ka hadlo gabdhaha walaaladay ah always aniga gabdhaha walaaladay aan la hadlaa haddii dhibaato ku haysato oo caafimaadkaaga mar allaale markaa umul tahay ama kii koobaad ha noqdo ama kii tobnaad ha noqdo ama kii shanaad ha noqdo ilma aad dhashid xanuun iyo buuq iyo daal iyo maaragtay jiro iyo inaad ilmaha nuujisa aadan rabin oo ilmaha oohintiisa ku dhibayso xanuun baa ku haya walaalay dhakhtar u tag haddaad joogtid dal dhakhtar ugu tagi kartid Mareykan Canada Yurub meesha rabta ha noqoto
dalalkan ilaahay kuu nimceeyo caafimaad fari aad haysatid u tag dhakhtar oo u sheeg inuu xanuunkaas ku haayo oo aad xanuunsan tahay. kiniiniyaal wuxuu kusoo siinaa ku dejiya, kiniiniyaal habeenkii hurdo fiican ku siiya. nin hadduu kuu joogo oo nin fiican yahay, raggayaga rag badan oo fiican baa ku jira, oo aabbayaal fiican baa ku jira, oo dumarku markay umusha noqdaan caawiya dumarkooda oo ilmahooda korsada baa ku jira. alxamdulilah. sorry. rag badan baa ku jira oo ilmahooda aada u jecel oo dumarkoodana jecel. u sheeg ninka inaad xanuunsan tahay, u sheeg inaad dhakhtar u tegaysid oo postmortem depression lagugu soo sheegay. ha qarinin oo taabuu ha ka dhigin oo luuqa ha la gelin. adiga unbaa dhibka isku keenaysid. dumar waxa waaye anaga dalkayga meeqa jare ka dhacday ilmahoodii mid hadda ka hor 3 cunug oo ay dhashay 3diiba kow ka siisay oo beebiyaal isku xixiga oo caddaanayna ahayd. markii lasoo ogaadin waxaa lasoo ogaaday inay depression qabtay oo isla hadashay. gabdho badan oo Soomaali way ku dhacday. gabar hadda ka hor waxaa jirtay iska soo tuurtay darbi ayadoo umul ah, dabaq dheer iska soo tuurtay. anaga dhibaatada waxa weeyaan waan qaadsanaa cudurka. yaan lagu oran way xanuunsanaysaa, yaan lagu oran way waalan tahay, yaan lagu oran baa isdhaysaa. laakiin waxaa ogaataa adiga inay damage maskaxdaada u gaarsiinayso, adiga inay dhibaato iyo ilmahaaga iyo gurigaaga ay ka go-an tahay. caafimaad raadsada walaalayaalow, dhakhaatiir u taga. ceeb ma aha. Soomaali iyo dadku waxay yidhaahdaan iyo maxaa lagu dhihi doonaa, wiilkaa ha ka fekerin, naftaada ka feker, ciyaalkaa ha ka feker, gurigaa ha ka feker, ninkaa ha ka feker. caafimaadkaaga aada u daryeel, caafimaadkaaga aada u daryeel, tahada ka feker. lain haddaa adiga xanuunsan tahay oo adiga isku buuqsan tahay oo qaylo ku dhibayso oo ilmihii ku dhibaayo oo ninkii ku dhibaayo wax kasta ku dhibaayo oo aarabti inaa adiga intaa baawur qaati isdishid ka iska siisid, very dangerous baa ku jirtaa. beri ilmahaagaas meel kama soo geynaysid, waxba uma samaynaysid mustaqbalkooda. adiga marka hore, adigu markaa caafimaad qabtay, gurigana caafimaad qabaa ogow. ilmahaaga iyo reerkaaga daryeelo, caafimaadkaaga number 1 ka dhiga lifekaaga. qofna ha dhegaysan, naag iyo sheekadeedna ha dhegaysan. maxaa lagu dhihi doonaane waxa weeyaan waxay kuu tarayaan malaay, waxay kuu qabanayaan. caafimaadkaaga qof maaragtay kaaga muhiimsan ma jiro, iyo gurigaaga iyo ilmahaaga. taada un ka feker mar kasta. intaasaan walaalahay idinkula talinayaa. khayr aan isku ognahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.